في سبتمبر وكل الثلاث بقول يسجل سجيتا كنت أيوه حقه الله نوافق فيه وحان قربت هل كان كدوبا يا قبي قاتلي وبلك الصومالية دار أهان بنا عمود عام كوا قبل دا waxaa tiriyey nin isna aada caan u ahaa waqtigiisii iyo kadibba aadna loo wariyo hadaladiisa iyo murtidiisa ninkaa oo la oran jiray ayax maxamed dhowre dagaalo ayax maxamed dhowre dagaalo wuxuu la degi jiray ama ay qoladoodu la degi jireen niman cumar maxamuud ah oo reer khalaf gaar ahaan nimanka la yidhaahdo reer xasan samatar ayaa weligood ay la degi jireen ka mid ayay noqdeen quud iyo qaaraan iyo wax walba oo laba qolo oo soomaalihii ay isku raacaan wadadega labada reer wuxuu had ya jeer keenaa in ay xooluhu isku meel daaqaan ceelkana ay wada tagaan dabadeed lo-dii reer dagaal iyo lo-dii reer xasan samatar rag ka mid ah ay leeyihiin oo isku jirta ayaa maalintii dambe meel la degay dabadeedna lo dhashaday ahayde waa soo insaarixsay nin la yidhaahdo caligaas oo ayax adeer u yahay ayaa loodii adceliyey dabeedna sida muuqata kolkii uu maaro u waayey oo qaylo iyo qob ku celi waayey ayuu halgaad iyo ul u qaatay saxuu lahaa yuusufkeed oo reer xasan samatarka ka mid ahaa ayuu markaa halgaadii la helay oo halkaa ku jabay sicii reer dagaal waa iska qasheen maadaama aan la kabi karin oo uusan kambalahayn yuusufkeed sicii ayuu sheegtay oo ku dacwiyey reer samatar khalafkii kale waxay yidhaahdeen yuusufow sacaa iska ilowwa sanad ka qaado mar hadduu nimanka uu ku baxay ay yihiin reer dagaal oo aanu degmo wada ahayn 5 ilaa 6 awoowe yuusuf waa isa soo taagay oo waa diiday siciguuna reer dagaal gaar ahaan reer maxamed dhowre ku qaanara niman reer samatar khalafka ah oo la yidhahdo reer cigaal bayr oo arrintii ay la xumaatay ayaa tuminsaku sicii ka bixiyey halkii ay reer dagaal ka bixin lahaay arrintaa oo jirta ayaa maalintii dambe caligaas waa wiilkii ka cajibin jiray wuxuu gaalkacya la aaday safarkii isagoo gaalkacya la jooga ayaa waxaa arkay yuusuf seefkiisa carahaa yuusuf seef dacwo ayuu ku taagay iyo qabsi ninkii la oran jiray caligaas waa la isugu yimi oo oyaal baa isugu yimi wuxuu yidhi ninkani sacan leeyahay ayuu iga jeliyey caligaas la yidhaahay gacantiisii ayaan ka rabaa caligaasoo waxaan baa layidhi saxu waa fulaan oo waa igu sabay waana qalanay laakiin rag odayaal ah oo reerkii aanu ka nimid aniga iyo isaguba odayaal oo ah ayaa arrintii kale oo 10 sako ama 10 dago ama 10 cali ah ayay ka fiiyangalay ninka wuxuu yidhi waxaan kala ka qaatay iyo wax odayaa fiiyan doon ma jira ee sidii ayaan ka doonay halkii ayaa 10 sako oo kale caligaas lagaga qaado halkii halkaa ajoog muddo kulanka aanu ka hadlaynaana waa 1970 bilowgoodii ilaa 40 meelaha beeraha oo sidii u wada degan ayaa laba dumari midna uu qabo maxamuud xaasan cali baaqee xasan sano midna uu nin wada mugaahe qabo arree waa haws doonte iyo hawskii ku maqan ayay waxay heleen qofki duubaada ama baxsada
طبعا كاسنا إنجليز كيتلان ومدرسين الثلاثة سنين حوالي سيارة ثلاثة وحي وقع في وقت السمر وبعد مراحل كمان بدو مراحل تيجي أي صوّر وحي تاريخي هل كأيتي ما بين وحى غيرها يوحد غير أي حي يكتبيه كعادة عامة كلامه تيجي نحن لحظة ما يوضع هل كده ورسولي حرم أيها لا أيه مقرد لرب الوضع الجوابت في أي كلام أيه وهو صراحة لا يحكم المغلق هو ما نجد أنه حاله الجزاء حسنا مستحيل وحي فريقه يجب بعيدة حاله المعجبة بعيد صورة لا أيه محمد دولي أيه حي الصورة محمود مراح حلقة أيه أخي يقول بصدره ويقول لي أي أنصره كده يقول لي كسودة يسودي أي أوصل لي يرضل كنا قوة حميدة يا محمد بعد ساعة كينا عبيد ويا عبيد يقول بلغة في وين عيح أيها وقع مسجد المغرب فتعج تجي رجعن كل شيء وإنما أنت يبني لي رجيحة الوقت محمد رسول يقول مغير ويمثل أي مغرب كده كده بقى يخليه غير عيح بدك كسو يقول لي واحد كده يقرأ غير يبقى يقول النبي يقول هو إلى حرام ما نسيكه في أي قوة يعرف في أي حوث هو بحاجة يحاب يحق الحاجة يجب يصيح على عنه هي الهدي سواء يبوح بعد حي سئنا ورياسي ذلك صد احترام معنا محمد كده هذا يسير وحانا حي هو إلهي ويا الرواي فحالي من المسكة بيعريف السلام لمصلحه والهواي سبعة عملية مثل وقع تعليم يبقى تعليم هذا عياله وكذا الله عيالي كانت عيالي لما من دوار مصر ويأتي ويسر يتعلم ويسر ومعانا عيال من السلام عيال يسر حميل الدعوة ذلك حتى هتتعلم حميل هي أي حاجة حنفوها فكنا أكثر ورحيل هنقول عن وقت الواحد يمكن سنة أي حول حبة لا يسمع أي حول وإحنا في سلالة يعني يتعلم مثل يمكن وليه أي فرق وليه مجرا سوى إنكراب يسأل سماعها وصلح وسيله أن تعتقى وغير معها ووعم حي وفي رسولك عليه الصلاة والسلام البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ملك وحاول غلا خطوة سيرانية بعدنا يريد انكرا أي حضان غريب في انكرا أي حضار أي ولي مدارانك أقل يترون في الغلط بار في حق الدين لا تكحوا معرض وتعصبوا من الوجوان منكم السماء في سماء الإسراء كنت علينا مثل أي حكوان بجاري ويحصل سماء البنجار أي كتيران يسن كتيرين أي جران جار وحقيري يقولا مريحان يجيبي من أي دور ممكن اللي هي تأثر يرفعن وغير السماء اللي مكة جران بجاري هي السيد كل بورين هذا يخبو خيالك قال عن ساسة الله وعن مرين دورا أي مالكها أي محمد دول ولدع عنك نفري ويسمع لك قبصة وأيضا لو كان الدعاء رضا قاتل أما أيضا كان لك قبصة البيت فيسمع عنه قد كاد من التي وقتان فهو يسكو قطر المرسان والقلع يعطوا عنه إسلام حيوى دنيا إن الدهدان الآدمين إن كذب
inihii aan isu keenay ayaanu halkan garab ka marinaya dhegaysi wanaagsan. ayahaasi ayax maxamed wuxuu yidhi indhaweyd bayaataanan qudin qaaradii gabayee waa ka qasanaaneetan iyo qabadki dawreedee markii idinka qaarkiin gamcaa laygu soo xubayo sida qawdhan iyo gooni waan uga qaseeyaaye qanaaniyo sidii weerar baan uga qurxeeyaaye qaraaboy ima qabo caawa waa soo qadimayaaye qudise waa qormada reer xasana qowlan maqashiiyey qodob kalena waa duniyadii qabanka saalleeyi qudi waa qormada reer xasana qowlan maqashiiyey niman yahuuqumaatiyo kala dawaafroone waxba lama qashee hadalkad waa la isu rooxaaye farda kala quluubayni raba qarowga tuuraane qoomaali oradkay sidii qumaya roortaaye quluubtii dadoo kala go'daa way suquruntaaye ragbasaheeda way qoonsan jiray tan iyo qaabiile dooraha waxaa looga simay waysku wada qayre qawaaniinku waa inuu nin ragi kula quwoobaaye qawaaniinku waa inuu nin ragi kula quwoobaaye haddi labadu kala qaadayaa hurux ma yeeshaane wax kaqoonsimaadkeen ahaa qaadistiisa caayo qarankeen wuxuu jabay markii qaali laysdaraye naftaa laga qalbado ruux yamiin qoorta loo suraye waa kaa qamuuyada dibnaha qoonisaga taale muxuu qomeeyey maxanuud hadduu qowmas yahay haddaan saydiisa dhuuxay qasbahay ina qisaasaynin oo aan geela qaawiyo idin la iga qaadaynin haddaan aniga qowl iyo hoggaan laygu qabanaynin wala yari ninkii iga damcaa way quluubsada qodob kalena waa duniyadii qabanka saalleeyey qoonkii wadaagtada baryaa ee baqoorsadaye afarka qalbadood iyo marbay dunida qaateene kuman qooragoo iyo lugbay cod u qalqaadeene ragta wuxuudka qoraaya bay ka qarka siiyeene qorax saacad joofiyo barqaa qaamudkood gara ee cirkaa lagaga soo qayay bastaas gaalku soo qubayo dabadeedna qoys lagama arag 7 qof mooyaane ma jeerteen qaraabiyo qol iyo kala qaran waaye caligarwaquwiyo xooro iyo waaye quruxdii iyo qaaskii ku dhacay aadan buu qaaxadii jaraye qabaalkii fureebay lahay waa yar qawlalay qurux iyo waxaa cali ka dhacay qadax qaraareede sabaatiin qurgo-ay lagama siin qayd maraykanahe qarka ina bulluun baa lafaha qarax la noobaaye waxaa eer cadqaacu uga karay qaawin dabareere waxaana qoola buusligay suryara qooqi loo dilaye qalbi malihi shaydaan hadduu qaalibkaa yahaye waa qaydad low kaaga go-ay karada qaarkeede qayaad iyo horaa bahra samay marisu qoonkeene gabdhihiina nimankii qabaad kala qasawdeene wax qoraala inaad uumiyuu kala qorowdeene qabkaad midig ma joogtaan dad way isku qatalmaysaane qurun baa awowdiin lahaa qoon raaciyahe qolqolkiina nimankii fadliyey qoysna laga waaye qaansheegad buu kaaga tegay qoonkii reer amare dumasoo salaa loo kujaray qaranjahoodiiye qasdhac lagama siin koray ku sahay qaalin noordiyahe waxa wadalmagona kaaga qumay waa ku qoonsadaye dabkii ina xaliinoo salaad iga qoraysaane ninkasta qaydkii loo xuulayoo qoysabaanahaye haddaan qaranka reer diini iyo qolo karuu meero qarax iyo haddaan ari cajago qaali baan noqone marka awtamaan soo qabsado uu tashaanahay ragoosa kula khasaariyo cidoo kula qalaamaada qaalmaha kangeeliyo dharkoo qaadashiya hooda oodaaro nabadkeeda iyo qooras labankeeda quraacdii aroosiyo barniga lagu qaxweynaayo qumba subaga qaabuuli iyo qadow la heenseeyey qayliga dhaqaasaha leh oo badi lasoo qaato waa yeelka taladuu qasaayo qodobka loo aaso qaabkayda duruureed
hadday qaylo kora weedho dhalinyaro qamaan waarana oo qalabka boodaysa waxaan adiga kugu quudin jiray hore karaansiina galankaha maroodiga ninkii waaye lagu qaysay oo 10 haruub oo qarqaran eebba kaga quudsay gutadiiyo qaninyada ninkii labada lagu quuray oo qoor dambeedkii candhada soosa kaga qaaday oo caanihii quboo ilmadu qoysay baad noqon qabilkiiyo nikaax naagaha qaata meherkii iyo qabaannimo ninkii iga danciyo ii qasaad marada qadarkaa ilaah iguma qaban qorbay xeradaye wayaan aniga xaasa aani qaban la igu soo qaadin walleese niman qabaayiilahaan qoonti kala waayin walloo qayda geys niman ah baan orod qaslayn waayin walloo qodatinimay heedhay baan qoondin kari waayin walloo qaaxoninay haysa baan soo qusuxi waayin walloo midacnimay qabatay baan dhigidku qoyn waayin walloo reer qabsiya hawdawaan oon ku qaban waayin walloo naag qabweey iyo rag baan dara heshiinaynin walloo naag nin hore soo qabtaan qowlkin laga waayin walloo qoysba sariireedahaan waana qurux yeelan walloo naag qabow kaa heshaan qabato kaa daynin walloo ninaan qur-aan dhigan nin baan qaalin noqonaynin walloo ninuu ilaah quudiyaan cidi ka qaadaynin walloo ninuu ilaahay qabtaan qora wax siinaynin walloo tuug la daba qoondiyaan qoodka xigi waayin nin khasaaro galay baan walloo qoomama ilaawin walloo ninaan isqabanow wanaag igama sii qaadin ayuu yidhi ayaan camal dawle baarowkii maxaysa waa tahay gabaygaasi haddii uu dhacay nafadhigaa yaal sow kala go iyo kala geedi maaha waa guuraaya nimankii uu gabayga ku sheegay inuu u guuraayo ayuu u guuray reerkiina nimanka la yahay waxa la yidhi aad baa halkaa loogu daraseeyey xoolana waa la siiyey inaan la ekaayeenba ayax wuxuu ahaa nin dhinac walba hanaqaadka ah nimankii ula deganaana hawlo badan ugu filaa wax alla wixii rag laga tisho oo waxtar ah nin leh ayaa lagu sheegay hadday noqoto dagaal hadday noqoto dood hadday noqoto xaasada biyogeed hadday noqoto aftahanimo intaa waxaa u dheeraa inuu ahaa waatan qolo walba oo soomaalida leh rag u gadiya oo haddii loo soo gadiyo ay qaladkaa usoo gabayda u jawaabi ayax wuxuu ahaa nimankaa reer kale ninka xagga gabayga ugu qaadisan oo markii lasoo gadiyo oo qolo kale ay soo gabayda isagu ka jawaaba waxaa la yidhi muddo kadib ayaa waxaa u yimid dagaal xayne qof ninkii la oran jiray oo ay xiriir gaara lahaayeen reer qalabkana ahaa lana sheegay inuusan joogin markii ayax dirooday ee la xumeeyey uu maqnaa markii uu yimidna rag uu ku jiro isagu hor socdo ay ayax soo dooneen oo wafki ah dhulkii uu deganaa ayaa loogu yimid waxaana laga codsaray in la xaal marinaayo sidaa darteedna uu reerihii uu ku noqdo ayaxtaa waa diiday waxaana muuqata adigu isagu sixdan gaaban ku sheegi doono in ay jirtay oo ah in niman walba hantaa reer hagalka ay usoo gabiyaan reerihii dabadeedna wax u jawaaba la waayey taa keliya looma qaadan karo waxaa loo doonayay ayax inay tahay sidiisa kala raganimadiisa iyo waxtarkii uu ahaa iyo ceebiska mayrid la sheegay oo ku jirta meesha intuba waa laga yaaba ama waa caddahay in ciyaal cayna u yimid ciyaal waa ina axmed saajid iyo sanaxda wax kastoo loo doonayada ayax maxamed dhowre waa diiday inuu ku noqdo reerihii iskamana diinin gabay ayuu halkii ka tiriyey gabaygaas oo aanaan hayn inahan tuura gooyada ah oo dhowrka tigo ah ayaanu ka sheegi doonaa waa gabay dheer sida muuqata laakiin cid haysa oo dhammaan u haysa ilaa hadda ma hayno sidaa darteed inta aanu hayno ayaanu halka qabanayna wuxuu yidhi jidkay duumay diis iyo cirada geedka ka caddaatay
واحد جميل تبضن وبأذانا هي إدارو بكي وضعوبا ساعد كدام علينا وكاد الدنيا هي مسؤوله جرئي دارود درهم لمن قورهين ذهب هباد في صدر السودة معي ورد جمع والله أنا ظلم دوارك ظاهر يا شمس من لبوب هذا الكيس وجوبا على عيني وضوبي ويوسف عليه إن يسرد ويجبع وناد بان كهري جلس مكاحاني غير ديني ويريدي ويجبع البقى يجبها الممان نكون رحيم ذهب حداد في صدر السورة معي ورد جمع والله دوكاني حتى إذن قصول إذن بقى الجوب dumarkii caruuraha haddaan ruuxna laga delinin dhibkii inamna xorninaan kalgacalii dad waxa hayne ana diiday weligay inaan dawla soo maro caawana waxaa iigu didi waan ku diyo darane wax dhan baan dagaalayaa amoo dirad ku taagnaayo wax dhan baan waxaan ii danayn aan dad soo uriyo iska diiday reer hagar haddaad igu diraysaan dabaylahasan ceelkaa waxaan loogu bacasoolin wadankaas ah oo goortaan damcaan wada ku duufaayay saaxiibkiisna sidii waxaa loo go-ay sidaa ayuu kula hadlay oo uu jawaabay muwarbaayaal uuna sababa xaggeeda dekanaasi ma aha taasna halkaa ayaana ku dhaafay